islaamku rag iyo dumar ma kala sooco ee qof kastoo muslima xil baa saaran والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم إلهي سبحانه وتعالى وقلت المام يا مؤمن يا مؤمن دبا بعضهم أولياء بعض بربك كله inay weli u yihiin inay qaraabo iyo tol iyo wax kasta u yihiin wanaaggana way isfaraan xumahana way iska reebaan cibaadaadkoodana waa sameeyaan alliya rasuulkiisana waa ateecaan kuwaas baana ilaahay u naxariisanaya baa la leeyahy aayad kale ilaahay wuxuu leeyahy faاstajaaba lahum rabbuhum ani laa udiicu camala caamilin minkum min dakarin aw unha bacdukum min bacd فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب إلهي وحط المام يا سبحانه وتعالى شقضاء قبطان رقي الضمر إن إلهي سبحانه وتعالى كأبال مرنيه kuwii soo hijrooday ee guryahoodii laga soo saaray ee ilaahay dartii loo dhibay ee diriray rag iyo dumarba waa lahaayeen walidaalika markaynu si duuduuban u tilmaamno islaamku wuxuu rumaysan yahay qof kasta oo bini aadam inuu mas-uul yahay afa xasibtum annamaa khalaqnaakum cabatha wa annakum ilayna laa turjacuun ayaxsabu linsaanu an yutraka suda وقفوهم إنهم مسؤولون كل هذه الآيات waxay tilmaamayaan qofka muslimka inuu mas'uul yahay ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaade naftiisu mas'uul ka yahay inta ku xeeran buu mas'uul ka yahay bulshadiisu mas'uul ka yahay kala soocani wuxuu soo baxay waqti dambe siiba aragtidan liberalismka iyo capitalismka iyo wixii la noocay markay bateen ay falsafa al-ananiya ama individualism in qofku uu yiraahdo aniga maxaa dan iigu jirto uu qofnimadiisa ka hadlo ayay soo korodhay laakiin iyaga laftooda markay dhibtu ku soo badatay aragtiyahan cusub ee ah social responsibility ama qof ha ahaado ama urur ha ahaado ama shirkad baac mushtar ha ahaato cid waliba inay social responsibility leedahay hadda way soo kordhiyeen waxaanay u arkayaan inay tahay nadariya akhlaaqiya oo sheegaysa kayaan kastoo jira ama qof ha noqdo ama munadama urur ha noqdee inay bulshada wanaaggeeda xil ka saaran yahay xilka saarani bay leeyihin laba midun weeyaan inuu xil salbiya yahay salbiga waxaa looga jeedaa mid negative ah yani waxaa looga jeedaa wixii bulshada dhib ku haya inuu ka joogsado camal samayn maayo laakiin waxa uu samaynayaa bulshada wixii dhib u keenaya inuu ka joogsado iyo cagsigeedu ah camal iijaabiya positive ah oo inuu bulshada waxtar ah waxay yidhahdaan saddex dhinac bay inta badan iyagu ka eegaan oo ah ecology ama waxaana yidhaahdaan albii'a environmentka ummaddu ay ku nooshay inaanu dhib u geysanin shirkadaha dhib u geysta afraadda dhib u geysta dowladaha dhib geysan kara nadariyadooda ijtimaaciga ama social responsibility wuxuu sheegayaa inaan wax dhiba loo geysanin environmentka ama bii'ada deegaanka ummada ay ku nooshahay qof waliba markaa waa xil gaaroo saaran waxaa kaloo saaran bay yidhaahdaan munadamaadka ay bulshadu leedahay inaanu dhib u geysan ee uu hagaajiyo hadday tahay qoyska iyo hadday tahay bulshada iyo hadday tahay ururada madaniga waxay doontaba ha noqoto ka saddexaad ay tilmaamanana waa qaybta dhaqaalaha ku saabsan laakiin soo duuduuba waxaan leenahay islaamku marka horeba waxa uu tilmaamayaa qofka muslimka ahi wax kasta oo ka soo fula aakhire in la weydiinayo waxaase hadduu bulshada dhib ku yahay iyo hadduu naftiisa dhib ku yahay iyo hadduu jaarkiisa dhib ku yahay cidduu doonaa ku dhib noqdo
iyo cagsigeeda waxaase hadduu waxtar naftiisa u yahay iyo hadduu bulsho weynta u yahay iyo hadduu community-ga yar mujtamaca yar uu ka tirsan yahay hadduu yahay iyo hadduu qoyska u yahay laga abaalmarinayo idan islaamku wuxuu tilmaamayaa marka horeba qofka bini aadamka ay mas-uuliyadda taabka ah inay saaran tahay sida ogeed ba shareecadu waxay u qaybisaa waxaa dadka saaran laba qaybood waajib cayniya oo qof walba wax gaar looga raba ah qof waliba inuu dhibtiisa dadka ka daayo gaar baa looga rabaa wixii naftiisa dhibaya iyo wixii bulshada dhibayaba inaad samaynin waxyaabaha qaarkood waa waajibaad cayniyo adiga qof ahaantaada laga rabo salaadaadii soontaadii iyo wixii la mida waxyaabaha qaarkoodna waa waajib kifaa'iya bay yidhaahdaan oo bulshadoo dhami ficilka inay samayso in laga rabo si kale markaynu u tilmaamno waxay yidhahdaan aragtidan sheegaysa xilka bulshada ka saaran qof walbi ama waa iltizaam ama waa ilzaam ilzaamka iyo iltizaamka wax weeyaan midna waa xil adigu aada isu xil saartay midna waa xil laguu doortay inaad qabato midna adaa isu xil saaray ثقافada in qofka muslimka ahi bulshadiisa xil ka saaran yahay waa ثaqaafa nusuusta qur-aanka iyo xadiidkuba tilmaamayso nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu leeyahy kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raaciyatih dhammaantiin waxbaa laydin raaciyey inaa ilaalisaan dhammaantiinna aakhiro waa laydin weydiinaya wixii laydin raaciyey mas-uuliyadooda ku saaray ama mas-uuliyaddaasi xil laguu doortay ama adigu aada u qumtay ha noqdo ilaahayna qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa waaclamuu ana allaha ilaahay wuxuu leeyay subxaanahu wa tacaala waxaa ka dhowrsataan mashkilad iyo dhib iyo imtixaan aan ku koobnaan doonin oo qura dadka inta dulmiga samaysa macnaheedu waxa weeyaan waa dulmi bulshadoo dhan gaadhaya waa dhib ummadoo dhan qabsanaysa cid waliba waxay xaq u leedahay markaasi inay joojiso intii ay joojin karto xilka bulsheed wuxuu ka unkamayaa macnaha sheegaya dadka muslimiinta inay yihiin luxma waaxida jidh qura inay yihiin almu'minu lilmu'mini kalbunyaan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay qofka mu'minka ah qofka kale mu'minkaa sida dhiska buu u yihi oo yashuddu bacduhu bacda ama nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoogu tilmaamay xadiidu safiina qoladii doonta wada raacday ee qaarna xagga hoose fuuleen qaarna xagga sare fuuleen ee qaar ay yidhaahdeen kuwii xagga hoose ku jiray maxaynu xagga sare ka doonnaa biyaha maynu halkan ka dalooshanno waxaynu biyo u baahanay halkan kala soo baxno nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kuwa xagga sare joogaa haddaanay gacanta ka qabanin dee dhammaantood way wada halaagsamayaan idan bulshada nolosheedu ka muslim ahaan way isku xidhan tahay wuxuu nabigu sheegay qofka muslimka ama bulshada muslimkii kaljasadi alwaaxid inay yihiin sidii jir qura ida ishtakaa minhu cudwun haddii xubin ka midii dhibaata ay soo gaadho ay cabato jidhka intiisa kalena cabashada iyo dhibtaasi waa gaadhaysaa haddii markaa la yidhaahdo bini aadamku ama dadka muslimiinta ay siiba gaar ahaan waa jidh qura jidhkaaga ma qayb aan mas-uuliyada kaa saarnayn baa jirta qayb walba inaad ilaaliso oo dhibta ka ilaaliso waa mas-uuliyad ku saaran sida awgeed ma kala lahaa shareecadu rag iyo dumar yaa ayuha aladiina aamanuu ilaahay markuu yidhaha waa dadka iimaanka laha oo dhan waxay yidhahdaan culammadu istinaa'aat baa jira exceptions waxyaabo culayskooda dumarka laga dul qaaday laakiin xataa kuwa qaarkood min baabi tatawuc way u samayn karaan maalan haweenayda muslimkaa jihaad ma saara haddana saxaabadii dumarka ahaa qaar baa jihaadka galay ma aha inay xagga logisticska yacni inay xagga taakulaynta qura kamay gelin dabcan xagga taakulaynta way kaga jireen dhaawaca iyo waraabintiisa cunada iyo samaynteeda waxaasi oo dhan waa kaga jireen laakiin qaar baa seefta qaatay dumarkii muslimiinta nasiiba oo kale caatika oo kale
يعني هوان دقالك كقيب قالوا صحابية دجرة إذن لقما ممنوعين أي دقالمان لكن وان لو التزامي واجب معها وحتى وقت هذا إسلام وجودهان مسلمين توحبوا وظفرك دمرك يدو لهيغا يا خصائصتooda gaarka ee dumarnimo waxyaabaha qaarkood ilaahay kuma ilzaamin qasab lagagama dhigin laakiin haday awood u hesho way ka qayb qaadan kartaa ama way samayn kartaa ayuha alahibba quraanku wuxuu inooga warramayaa qofka muslimka mas'uuliyadda saaran مثلا في سورة ياسين إلهي وكا ورميا صدح رسول الله ميل الله صدر ودتك ديدين إلهي قرآن كوكا ورميا نين مقالة الدعال كذا كسو عرري نيكاس يساقا يسحل سهري حل إنو الرسول شانو هيليو تلكي نبت باديو وقفك حكا كيم قرآن كوكا ورميا مؤمن آل فرعون وكذا يساقو كم إذا دتك قصورتي ميلها النمعضة أتشوغي ayuu haddana isku dayay inuu u hiiliyo ambiyada ilaahay dhan kalena isku dayay tolkii inuu cadaabka iyo dhibta ka badbaadiyo inaanay halaagsamin reer fircoon buu la hadlayaa aal fircoon buu leeyahay war maanta mulkiga haysataan waryaan ilaahay ciqaabtiisa idinku dhici tolkii buu u digayaa waa mas-uuliya ijtimaaciya uu qaadayo waxaa qur-aanku uu ka warramayaa nebi muuse la eryaday oo ka baxsaday waddankii uu deganaa oo ku soo baxay dumar jilicsan oo caalkii qolo ragi ka hor taagan tahay ama ay isku cidhiidhyadeen oo raba shaqadiina inay qabtaan xishoodkoodiina ilaashadaan waa haween shaqadii raggu qabanaya iyadaa qabanaysa maca daalik xushmadeedii iyo xishoodkeediina way ilaashanaysaa markuu yidhi maxaa u cabbi weydayna waxay yidhaahdeen waxaanu sugaynaa intay kuwa raggan inoo bannaynayaan markaasaanu inoo xoolaa waraabsanaynaa dabeetana wuu u waraabiyey waa mas-uuliya uu dareemayey qur-aanku wuxuu ka warramayaa asxaabu sabt duul xuma loo diiday oo maalmaha qaar lagu yidhi ha ugaadhsanina oo ugaadhsaday oo bulshada intay kala jabtay qaybi ay digayso oo uga digayso xumaha macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun leh waxaas aynu tilmaamayna qur-aanku uu sheegaya waxa weeye waa mas-uuliya bulshada afraad ka mida ay qaaday afraaddaa qaaday hadday rag yihiin iyo hadday dumar yihiin waa isku mid hadday rag yihiin iyo hadday dumar yihiin waa isku mid waxa qur-aanku tilmaamaya markaa waxa weeyaan in qofka muslimka bulshadiisa xil ka saarantay xilka saarane muxuu u qaybsamaa waxay yidhahdaan qof kastoo muslima oo ay ka mid yihiin haweenka muslimaadka ee waxa saaran xil diimeed إلهي وحلي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وحتى بال إلى أمة عنده خير بدن ولا السببية حيو خير بطن وحي إلهي تلمام يتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ضدك السماها فريسة حمهنا وكريبسة ألنا ورميسنتي تا معنى هيدو حويان ما كلا لها الرجل يضمر إن حماها ضدك الله جريبه ما كلا لها الرجل يضمر إن سماها ضدك الله شيبه إذا مسؤولية دينية صارا وحصارا بين لنا مسؤولية أخلاقية برشاد مسلم كان ما تقف ولا إنه مجتمع كان دقة كيسة إلى اليوم هي حشمة ديسة هي وناء ديسة هي أخلاق ديسة هي عفة ديسة هي دوسني ديسة إلى اليوم وحكم إذا كورنتا جيل كعصبة سوقعية إن وضد الضمان لغو هجاجيو رجي الضمر بواسارين ما كلا لها مسؤولية داسة وحصار المسؤولية التعليمية جهل جاينو مدى لغا صار قفك استوى مسلمة وحل صارا إنه مدي سينتي وجهل كفيدك كفيدو وهو محي توفير التعليم ونشره بين أفراد المجتمع وإن ويسكت يا قفك مسلم كي حلك إنه قادو إنه بلشدة أقوت جالسين كرو أما أقابين كرو إنه ومدى قادو مثلا تسأل عن الجسيم جامعة ما أنت الدنيا ده وبدأ وين إيجرته جينس بوك كشرته يونسكو ريجستر كريسان أولي جامعة شرته
التاريخ يهندو أي تلمامان رقوة وين ودنيا التاريخ ده مقع يما موس بقول إن يا ما أرضيك هاي أنا ما معلمينك هاي أنا يسوع مرين قبل مسلمة ده حلقة قاعدة سمايسي قبل مسلمة ده هي حلقة قاعدة هوين المسلمة ده فاطمة بنت محمد بن عبد الله الفهري وقبل كو أبتر ستر عقبة بن النافع نكي لورنجري الصحابي بقى متابعي بقى عقبة يعني وقتي وأنا قريشات بشيء وقتي النبي عليه الصلاة والسلام لكن يرى وأنا نكي أفريقيا فريتا كذا بلابي أي صحابة وحل صارتي تونس يمالها كانوا نكي فرتي ماشان قرويين تلاقيها ولدي دكتي أبهد وحكوا أبتر صدا عقبة بن النافع أبهد وحيمي يريركو ديبا فاس magaaladan la yiraahdo ee Morocco ku taala abaheed wuu dhintay ninkeedina wuu dhintay xoolaad u badanna way uga tageen gabadhaad u cibaado badanna way waxay go'aansatay inay jaamac samayso iyo jaamacad dadka muslimiinta ay wax ka bartaan bal ay dunidu wax ka barato waxay dhistay jaamacatul qarawiyin waxay bilaaday bil ramadaan 2,245 هجرية يعني 690 ميلادي ميلاس ووقتي كن يلا بقول السندات كله لقيتشوفه كن يلا بدا بقول السندات وقتي كله جامعة دي لدسي لا هذا ويش قيسا مسلمين تكدم بيسوي سي وين يجيبون وجامعة وحكومة تدد مسلمين يدد قرايبا رجل جوجي جري وحكم هاي ابن خلدون كمغشان وحكم هاي ابن الرشد فيلسوف كعام كطبيب كفقيه الله يقانو ابن الرشد وحكم ده بوب كيلورن جري سلفستر الثاني سلفستر ذا سكند ولا ينهض وانك نمبر كان يوروب جاي نمبر كان 1 2 3 قاب كانوا قرما الى يوروب نمبر كي تقاني وحوها محي رومانيا نمبر اسكي اكس يا في يا ال يا ام يا وكو كوي تقاني لكن نمبردان كو لبا صدح دا وقرما waxa lagu tilmaamaa ninkii koowaad ee geeyay inuu Sylvester Karaha jaamacada Fas buu wax ka bartay waxa kamid ahaa yahuudiga la oran jiray Musa ibn Maymun dhakhtarkii caanka ka ahaan jiray dawladda Abbasiya waxa kamid ah rag badan baa jaamacada tan ama arday ka noqday ama ustaadin ka noqday haweenay muslimada hantida ee aabaheed iyo ninkeeda ka dhaxashay iyadii walaasheed Maryam iyana wax u dhigama waxan bay Andalus ka sameysay ayay waxay go'aansatay inay meel muslimku wax ku barto ku cibaadeysto u dhisto hantideedii inay ku dhisto 18 sanadood bay jaamaca dhisaysay waxay culimada qaar tilmaamaan 18 kaba inay soo marayd hataa gabadhaad u cibaado badan oo aad u ka cabsi badan bay hadba lagu tilmaamaa jaamacada ay dhistay ilaa hadda waa tan Guinness Book-na ku jirta UNESCO-na ku jirta la tilmaamayo awwal jaamaca fi العالم inay جامعة ودة وين الدنيا كجرت يلا بدسي حتى أزهرية ذا كله رئيسي وحتى المام إن أمريكا مسؤولية اجتماعية بصارا وضد المسلمين تاي علم جفافنيا قال يا مسلم بقارسينية وحصارا بين لنا هاي تعكس جده وأنا النمو أما السلفش نمو أما أنا أنا أتراهضهم iyo inaana dareemin in xulku saaran yahayba inaadamku ciidii xilkan qaad weydaa waa laba mid u day inaanu xilba daraysnayn ama inuu anaani yahay inuu dantiisu ka hadlo xaaniga dani ugu jirta inuu ka hadlo islaamnimaduna sida maaha walidaalka baa culimadu waxay yiraahdaan alwacyi bilmas'uuliyya alijtimaaciya bulshada oo la dareensiiyo xilka bulshada ka saaran afraadda bulshadu ay leedahay oo inta yar yihiin lagu soo train gareeyo ama lagu soo barbaariyo lagu soo kobciyo oo la dareensiiyo xilka ummadda ka saaran wuxuu fudaydiyaa bay dhahdaan culayska dawladaha qabsada ummaddu hadday xilkaa dareemi weydo
wax walba waxay ka sugtaa inay dawladdu u qabato caafimaadka tacliinta thaqaafada nadaafadda biyaha wax walba laakiin dawladihii islaamiga jiri jiray xilka saaraan jiray ee waxa ka saara uu yaraa walidaalika hadda taariikhda dib ugu noqoto muslimiintii hore meelaha waxbarashada iyo meelaha caafimaadka iyo meelaha quudinta masaakiinta iyo agoonta waxaasoo dhan waxaa qaban jiray awqaaf islaamiya dad islaamiya aan dawladda ka mid ahayn baa samayn jiray intooda badan walidaalika markaad eegto maalan tacliimka haddaad eegto dimashq 19 madrasadood oo caan ahaa waxaa dhisay dumar muslimiina xataa taqiyadiin ibnu salaxa maqashaan iyo meelahay joogi jireen muxadisiinta waaweyn haweeney muslima madaaris ay dhiseen bay ahayd yamanta intaynu inoo jirta 330 baa la yidhaahdaa bay dhiseen haweenka muslimiinta hore sacuudigana iminka arkaysaan awal madrasa nidaamiya school nidaamiyo systematic oo kii koowaada gabadh muslimada oo hindiyada u samaysay solteen weli wuxuu ku yaallaa maka isagoo kula taliyey caalimkii muslimka ahaa raxmatullaahi lakina oo la odhan jiray waa caalim kale kitaabkan macruufka ee idhaar ilxaqa la yidhaahdo kitaabka ugu caansan ee radiya ee christianityga iyo afkaarahooda waa kitaabku diidaat ardayga u noqday axmed diidaat caalimka maqli jirteen waa kitaabku daraaseeyey wax ka bartay ninka qoray raxmatullaahi lakina oo ah culamadii uu ingiriisku dilka ku qaadayay ka soo cararay oo maka yimi ayay haween muslimada oo indiya joogto maalqabeen la soo hadashay markaasay tiri waxaan rabaa inaan ceelal ka sameeyo xujaajta iyo dadka muslimiinta ay ka cabaan wuxuu ugu jawaab celiyey ceel maanta wax muslimku uga baahi badan yahay dunida ka jira waa maxay bay tiri wuxuu yidhi inaad wax barto muslimiinta ka roon maanta ceel biyo laga cabo inaad samayso سادرادد وحو كula taliyay inay samayso madrasa nidaamiya waa awal madrasa nidaamiya sacuudi ba laga sameeyo gabadha hindiyada sultay la yiraahdo ayaa samaysay waxaan go'dan leeyahay bulshadii hore muslimiinta bibir meelahan mustashfayaadka dhakhaatiirta waqfi islaamiya ku samaysmi jireen in badan oo kamid waxbarashadu in badan oo kamid awqaaf islaamiya ahaan jireen agoonta masaakiinta dadka baahan quudintooda waxaasoo dhan bulshada muslimkaa samayn jirtay bulshada muslimkii markaa waxay qabtay wacyi ah almas-uuliya alijtimaaciya in xil ka saaran yahay qofka muslimka ummadiisa innagu waxaynu rumaysannahay ama dadkeena sida loo barbaariyey gurigaagun in xil kaa saaraya rag iyo dumarba bale waxaa laga yaabaa bulshada kale inuu dhibba ku hayo uska kale inuu waddada ku saydho xashiishku gurigiisa ka soo fiiqo inuu waddada ku saydho inuu wax tara daayo inuu dadka dhibaabay u badan tahay halka mujtamacii hore muslimka ahaa siduu u fakeray ahayd qof waloo muslimaba inuu arkayay in xil ka saaraya ummadda inteeda kale taasaa waxay fudaydisay bay yidhaahdaan alwacyu bilmas-uuliya alijtimaaciya baa waxay fudaydisay acbaadi culayskii dowladnimada saaraa innagu waxaynu rumaysanay wax walba dowladda yar ama xoog badnaata ama taal yaraatee wax walba in iyada laga sugo qofku markuu hadlayana inuu yidhaahdo maxay qabatay dowladdu ficlan inay wax qabato way tay laakiin bulshaduna inay iska dhigto agoon la korinayo maaha bulshadu agoon maaha bulshadu aqoon bay leedahay cilmay leedahay hantay leedahay dad bay tahay waxqabad bay samayn karaysaa bulshadu maaha caruur agoonoo la korinayo waa inay bulshadu u fakertaa inay xil qaadi karto xilkaasina rag iyo dumarba waa loo simaya waa la qaadi karaa sidaa awgeed ayaa ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu tilmaamayaa dadka muslimiinta ah watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri baa ilaahay waa dad isu dardaarmaya xaqa wax kastoo xaq oo wanaaga waa dad isu dardaarmaya sabirka marka ayaad dantaada qura ka fakerayso culayska ku fuulaya wuu yaryahay sidaa daraaddeed waxaa laga yaabaa qof waliba inuu u sabro culayska naftiisa ah laakiin markaad danta bulshada qaadayso culayskeedu wuu badan yahay waxaa laga yaabaa dadka adigoo wax taraya inay ku maagaan adigoo danta dadka ka shaqaynaya in lagu xanto
waxbuu cunay waxbuu qarribay kanbuu saan yeelay wuu istusaya dar alle kama aha magac buu ku doonay wax kale in lagaa sheego adigu waxaan u wadaa ay tahay inaad ilaahayna raalli geliso dee aakhirana waxa dadka lagu imtixaamay dunida intay joogaan la weydiinayo waa ayukum axsanu camala kiina camal fiican adduunka waxaynu u joognaa in layna imtixaamo waxaana laynagu imtixaamaya wax qabadkeenna intuu leegi wax qabadkuna maaha ka naftaada qurhe waa ka ummadda muslimka oo dhan sidaa awgeed ilaahay wuxuu leeyahay dadka mu'miniinta ee aakhiro badbaadaya ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri baa ilaahay waa kuwa xaqa isu dardaarmaya sabirkana isfaraya ayuha alaxiba markaa waxaynu leenahay mas-uuliyad baa kaa saaran iscaadu laakhir walaalkaaga kale inaad ka farxiso wuxuu nebigu yidhi axabu lacmaal waxaa ka mid ah camalada ilahay agtiisa loogu jeceliyay waxaa ka mid ah sururun tudkhilhu waa farxad aad geliso guri islaameed guri muslima farxad aad geyso oo maa maxay farxadda guriga muslimkaa la geynaya nebigaa sharxay calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya waa gaajo aad ka dul qaado kurbo kaloo haysato aad ka faydo waa waxqabaduun waa dadka muslimiinta ee kale oo waxqabadkaagu uu gaadho marka iscaadu laakhir waa mas-uuliya ijtimaaciya qof kastoo muslima saaran ka bilaabma qoyskaaga iyo gurigaaga odaygaaga carruurtaada ku xiga qaraabadaada iyo jaarkaaga reerahana qaraabada tihiin ama dadkan aad jaarka tihiin waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay mu'min maaha qofka seexda isagoo jaarkii gaajaysan iyo uu og yahay isagoo jaarkii gaajaysan yahay oo uu og yahayna yani taas waxay tilmaamaysaa in xil kaa saaran yahay dadkan aad jaarka tihiin waxay nusuusta qur-aan iyo xadiid laba tilmaamaysaa qaraabada in xil kaa saaran yahay qur-aankana in badan waa ku aragteen dil qurbaa midhan oo ilaahay ka warramayo cidda wax la siinaya ayaa ka mid ah qaraabada kuwa saaxiibka habaa la tilmaamaya idan iscaadu laakhir inaad dadka kale aanad xilku gurigaaga iyo carruurtaada iyo walaalada iyo intanoo qur-aanu ku koobnaane inaad isku daydo hadba intaad awooddo bulshada kale inaad gaadhsiin karto waxaa ka mida bay culammadu yidhaahdaan alcamalu calaa rafci iljahl ummaddu aad jahliga ka faydo qof wax bartaya laba wax bartaya masaajid wax ka dhigtaya iskuul wax ka dhigtaya agoon waxbarasho ka bixisaya waa waxbarisu noocay doonaysa hawa ekaato ha ahaato inaad dhaqaal ahaan uga bixisay ha noqoto adigu inaad tahay aqoon-yahanka waxbaraya ha ahaato diintiisa inaad bartay ha ahaato aakhiradiisa wuxuu ku liibaani lahaa inay bartay waa rafci iljahli can ilumma ummadaha waxa ugu weyna haysta jaahilnima ugu badan wax badani waxay u xumaadeen aqoon darro haddaad ummadda aqoon dhaanto ama mid adduun ha noqoto ama mid aakhiro ha noqotee inaad ka faydo jahligu waa xil lagaa sugayo waa xil lagaa sugayo dadka inaad inta ya-siga iyo quusta ku dhacday inaad ka biiso dadka badh baa iyagoo nool dhintay waayo wuxuu rumaystay inaan waxbaba la qaban karin wuxuu rumaysan yihi inaynu weligeen faqriga ku jirayno wuxuu rumaysan yahi dunida kalena inay horu marayso inaguna weligeen inaynu reerayso haysanayno dib u soconayno waa ya-si waa geeri qof nooloo dhintay weeyaan dadka inaad ya-siga ka saarto oo mustaqbalka u ifisid oo tustid inuu wax qaban karo oo ku caawisid siduu wax u qaban lahaa waxaa bulshada wax taraya inaad fadiilada iyo samaha faafisid mahana ka hor timaadid xumo diimeed ha noqdo xumo akhlaaqiyad ha noqdo xumo qabiil ha noqdo wuxuu doonaya ha noqdo bulshada waxa waxyeelaya inaad isku daydo inaad taakayn kartid oo joojin kartid wax kastoo bulshada waxyeelaya qofba intuu joojin kara hadduu joojiyo xumuhu u istaagaya carruurtaada ka bilow jaarkaaga ku xigsii kuwa kaa durugsan ku xigsii kuwa isku masaajidka tiin kuwa isku iskuulka tiin kuwa isku jaamacadda tiin kuwa isku qoyska tiin xumaha inaad joojiso iyo cagsiga oo ah samaha inaad faafiso waa mas-uuliyad waa xil bulsheed oo u baahan ciddii qaadi lahayd waa xil bulsheed baahida dadka baahan in la qaado hadday agoon tahay
ay masaakiin tahay day dadaan waxaysan tahay in wax la taro nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy aniga iyo agoonka qofka ka kafiisha sida labadaa farood baanu jannada isku nahay buu leeyahy aakhira saasaanu isku nahay ma ninunbaa wax kafiisha maya rag iyo dumar baa la kafaalo qaadi karaa xataa haddaanad adigu waxaysanin ha ku biirin kuwa ilaahay yidhi walaa yaxudu calaa طacaami اlmiskiin qaar baa ilaahay wuxuu ku eedeeyey ma booriyaan miskiinka waxsiintiisa lama odhan wax ma siiyaan waxaa la yidhi ma dhiiri geliyaan waa suurtagal inaad adigu waxbaba lahayn qof waxaysta inaad ahayn adba biilku inuu kugu yariyey laakiin waxaa suurtagala inaad karti a leedahay organizer inaad tahay karti a inaad dadka isku xidho inaad abaabuli karto inaad xaafaddiinna intaad abaabusho samayn kartid kontonka guriga isku xiga 4 qoys 5 qoys baan waxaysanay 4taa qoys 5taa qoys inaad ka keeni karto kontonkaa qoys inay masruufi karaan oo bishii ininta yare bariiska ininta yare sokorta ininta yare la karsado ay isugu dardari karaan waa isugu dardari karaan xataa haddaanay wax cusub soo yimin haddii reerba bariiskiisa galaan kaga daro waa konton galaan ma yara yacni bini aadamku ma wada aha dad wax wada haysta mana wada aha dad wax wadala laakiin bulshadu say isugu xidhantae xilka u dareento ayay baahidu uga baxda saxaabadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa inaga baahi badnaayeen waa inaga waxhaysad yaraayeen waxaynu haysanno wax ka yar bay haysteen laakiin dareenka mas-uuliyadeed bay inaga badnaayeen oo ah inay bulshadu xilkaasi qaadi karto idan dadka baahan iyo dadka muxtaajiinta ah in ricaayadooda aad ka qayb qaadata waa mas-uuliyad bulsheed waa mas-uuliyad bulsheed inta la dulminayo in laysdhinac taago oo cidda wax dulminaysa hadduu qof yahay iyo hadduu qabiil yahay iyo hadduu dowlad yahay ba in la yidhaha war ka daa in la yidhahdo waxa dulmiinne waxay leenahay waxaasoo dhami waxa ay ka dhashaan marka hore inaad qaadatid dareenkaa in xilku saaran yahay haddaad see rumaysantahay inaan adiga waxbaba ku saarayn 5 salaadoodna waan tukaday bishiina waan soomay haddaad qaadato fikradda ah idan waxaad rumaysantahay inaad adigu shaqadii oo dhan dhammaysay aan waxba daba kugu hadhin haddaad see rumaysan tahay in ummaddaada xilkaa saaran yahay calaa xasabi qudratika waistitaacatik intaad adigu awooddo inuu kaa saaray inaad awoodin ilaahay ku weydiin maayo laa yukallifu allahu nafsan ilaa wascaha laa yukallifu allahu nafsan ilaa maa aataaha ilaahay adiga wuxuu kuu siiyey ayuu kugula xisaabtamaya wuxuu ku siiyey waa caqli waa xoog waa talo waa cilmi waa dhaqaale waa noocyo badan yihi waa caafimaad waa wakti dheeraad oo firaaqa ah waxa lagu siiyey wuu noocyo badnaan karaa kaasa adiga lagugu xisaabinaya kaa intaad bulshada wax ugu tartay kaa intaad adigu naftaada wax u tartay ayuha alaxiba waxaynu leenahay warkoobani wuxuu yahayba waa inaad noqotaa juz qayb iyaduna fiican dadkeedana u fiican waa intaa lagaa raba kun saalixan muslixan noqo qof isagu wanaagsan marka hore oo dee awal mas-uuliya yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahlikum naaran waquuduha annaasu walxijaara mas-uuliyaddu waxay ka bilaabataa naftaada wa anfusakum ayay ka bilaabataa laa yadurukum man dalla ida htadaytum waa inaad taada marka hore ku quntaa kadibna mas-uuliyaddu way sii ballaadhataa way sii ballaadhataa carruurtaaday noqotaa odaygaagay noqotaa jaarkaagay noqotaa walaaladaabay noqotaa qaraabadaaday noqotaa xaafadaaday noqotaa magaaladaaday noqotaa dowladdaaday noqotaa muslimka guud bay noqotaa insaaniyadoo dhan bay noqotaa ila bini aadamka laftiisa naar baynu ka badbaadinaynaa bini aadam oo dhami haddaanu diinta qaada naarba ku socdaa saa awgeed waxaa xil inaga saaray inaynu badbaadinno ka muslim ahaan waxaa xil inaga saaran yahay
aadamaha inaynu dhibta ka kor qaadno wixii aynu ka kor qaadi karno ayan kaan qof kastoo dulman qofka mu'minkiihi marka hadduu xilka sidaa u dareemo oo wacyigaa yeesho wuxuu tallaabsadaa hadba intii uu awoodo marka laakiin tallaabada wacyiga ka horeeya garashada iyo garaadka ayaa ka horeeya uu qofka muslimkii dareemo in xil saaray darsiga markaa ma jecli inaan sii dheereeyo waxaan jeclay kelmado kooban oo dadkuna uu fahmi karo qaadina karo aanay kula daalina nidhaaho wacdi tiro badan oo aan tilmaamnaa waxba sheegi maayo midna waan ka digayaa aidiyada galbeedka ka timaada western society-ga ka timaada waxay u badan tahay aragti rabta qofku xil inuu xil ku bedesho taasina sax maaha xil intuu soo dayaco inuu yidhaahdo xil kale ayaan qabanaya oo marka laga warramo bulshada xilka kaa saaran dadku waxay u fakeraan qadiyadda siyaasiga iyo gabadhu ha shaqo tagta iyo kan ha la sameeyo iyo waxana la sameeyo midna ha la soo dayaco maaha aniga waxaan leenahay xagga hoose ka bilaabina kor baan u soconaynaa kan aad gacanta ku haysay dayici maysid waayo kan haddaynu soo wada dayacno waxba hagaajinba kari weyn wax dambo hagaagayaa ma jiro aragtiyaha qaldan ee biiraya waxaa ka mid a maalan tusaale quraan idin siinaya waxqabadka bini aadamka maxaa lagu qiyaasaa reer galbeedku waxay inoo bareen waxa la yidhahdo GDP ummad waliba shaqada waxay soo saarto maxay ku qiimeeyaan marka dadka shaqeeya iyo waxay soo saaraan baa la tilmaamaa maxaa laga tagaa marka urur ka mida ururada uu xisaabiya wuxuu xisaabiyey inay xisaabtaas sida loo xisaabiyaa aada u qaldantay oo maxaa laga tegay maalan gabadhu hadday xafiis ka soo shaqayso soo masaxdo waa shaqada dawladdu xisaabsanayso nimanka xisaabinaya bulshada intaajkeeduna ay xisaabinayaan waayo mushaharna way qaadataa cashuurna waa laga jaraa markaa waa la xisaabinaya hadday gurigeeda masaxdana shaqaba maaha oo labadaba masaxaad bay ahaayeen maxaa u dhexeeyey tan free bay u qabatay tanna mushahar baa lagu siiyey okay haddaynu tan mushahar ku siino maxaa soo baxaya markaa dawladduna cashuur bay helaysaa kana kan buu helaya kana waa la xisaabinaya marka ma in lacag la bixiyaa baa lagu xisaabiyaa shaqada mise shaqada waa shaqo marka hore ama dar ilaahay u qabo ama xoola ku qaado ama saa doonaysa u qabeen waxaan uga dan leeyahay markaa islaamnimada ay ugu filan islaamnimada ay ugu filan islaamnimada ay ugu filan waxaan tilmaamayaa ilaah iyo rasuulkiisu waxay ina fareen baa rag iyo dumarba ku filan aakhiriya adduunbana sacaado lagu gaadhaya laakiin waxaa layna faray baa waxaa ka mid ah inaynu dareenka qabno bulshadeenna in xilinaga saarayin sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin